baaq ku socda dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ka badan 50,000 oo qoys ayaa wajahaya halis dhinaca nolosha ah kadib fatahaadaha webiga ee magaalada Beledweyne. Xaafadaha Howlwadaag, Booshin iyo Xawataako intaba waa laga barakacay. Nolosha dadkeena Soomaaliyeed ayaa halis ku jirta haddii aan si degdeg ah loo gaarsiinin gargaar. Waxaa fatahaadahani ku geeriyooday ku dhawaad 5 qofood, kumanaan kalena waa dhibanayaal. Waxaa cabsi weyn laga qabaa inay fatahaadahani ay sii kordhaan, khasaaruhuna uu intaasi ka sii bato. Haddaba, madaxda xisbiga UPD waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaan in si wadajir ah loogu gurmado noloshoodana loo badbaadiyo walaalaheena Beledweyne. Fadlan ka qayb qaado samata bixinta shacabkeena Soomaaliyeed.